كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 118aad qaybtii afraad iyo su'aalaha iyo jawaabaha kii 13aad waxaynu eegi doonaa casharkani ka dambeeya ilmuhu markuu soo gaadho sanadka saddexaad markuu soo gaadho waxyaabaha uu samaynayo waxyaabaha waalidka looga baahan yahay inay u sameeyaan iyo casharka dambe activity-ga ama waxyaabaha jirkiisa furfuraya ka shaqaysanaya waalidka looga baahan yahay inay sameeyaan. sanadka saddexaad waxaa la yiraahdaa maadaama sanadkii hore labaad waxay dhahaan kelmado yar ku dhawaaqay ha iyo may iyo waxyaabo yar oo kooban. waxaa sanadka saddexaad markuu soo gaadho waxa uu fududaanaysa inuu sameeyo kelimaatin caadada litawaasul, macnaha xiriirka dadka inuu kelmado badan isticmaalo u adeegsado ayaa u fududaanaysa yiraahdaan oo isticmaalaya. waxay dhahaan lambarka labaad wuxuu bilaabayaa mararka qaar aad arkaysaa macnaha dadka u imanaya ama dadka cusub oo kale dadka qaar marka waxay dhahaan marka inuu khajuulo macnaha inuu ka khajilo marka oo sidoo maanta uu hadlaya ama qof soo galo kale in wax laga yaabo usqaylal marka uu aamusan marka. waxay dhahaan sanadka saddexaad markuu ku jiro wuxuu bilaabayaa isagana macnaha inuu mumaaraseeyo ama waa maxay uu ku ciyaaro active macnaha alcaabta marka waxyaabaha ay alcaabta yar macnaha iska khiyaaliga marka waxyaabaha inuu aad ugu ciyaaro aad maxay uu ay marka maxayadana u bilaabaya. waxay dhahaan lixda bilood ee dambe ee sanadka saddexaad waxay dhahaan wuxuu isku dayayaa marka inuu isagu keliga u istaagi karo, keliga waxay dhahaan maxay wuxuu qabsan karo, keliga waxay dhahaan marka maxay uu ciyaari karo. loo ciyaarta waxay dhahaan jecel yahay marka inuu isagu marka maxay keliga u ciyaari karo ayaa marka u suurtoobaysa, ayaa marka maxay suurtagal noqonaysa. waxa kale marka waxay dhahaan uu bilaabayaa macnaha musharakati maca al-aakhariin inuu dadka kale la ciyaaro oo uu dhex galo oo uu dhex boodo oo uu dhex socdo iyadana waxay dhahaan marka maxay uu bilaabi karaa marka. ta kale waxay yiraahdaan iyadana wuxuu sameynayaa markan oo toos ugu kala cadaanaysa bay dhahaan dadkii markii hore wax laga yaabo aanu kala saari karay sanadkii labaad oo kale wajiyadu arkayo kaliya hadda waxay dhahaan marka maxay uu kala saari karayaa marka dadkii maxay uu kala soocan yihiin marka dadkii oo dhan kii ugu soo dhawaa kii ka fogaa qofkii xaafadda ahaa wixii oo dhan marka waxay dhahaan marka waxa u fudud inuu si fiican u kala saaro. haddaba isagu intaa markuu la yimaado oo sanadka saddexaad uu intaa laga helo ama 6 bilood hore ha ahaato 6 bilood dambe ha ahaatee waalidka maxaa la gudboon marka waalidka waxa la gudboon bay dhahaan inay horta ay ku dhiiri geliyaan inuu ciyaartiisa si mustaqil ah oo madax bannaan u ciyaari karo oo uu ciyaartiisa si madax bannaan marka uu sameyn karo marka. waxay kaloo yiraahdaan markuu ciyaarta sameynayo ama de waxyaabo yar bala yar ama waxyaabaha yar maxay balaastiga waxyaabaha caagadaha yar waxyaabo ku ciyaaraya noqotee waxay dhahaan waa inay waalidku marka kelmado ammaan ah ama dhiirigelina ama iyaga maxay de motivation badan siinaya macnaha ku maxay la hadlaya waa inay u sameeyaan marka waxyaabo turturaya oo kale si hadal macnaha dhiirigelina marka ayaad marka maxay u isticmaalaysaa adigoo maxay la qoslaya oo la farxaya ku qaylinaya ama maxay dhiirigelin marka ayo inta uu sameyn loo kasii kordhinaya bay dhahaan marka qofkii haddii macnaha markasta si aan isagu waxa ku cusub yahay wixii hadduu bilaabay marka markasta ka joojishid ama aad ka soo celisid ama aad hadalku ku qaylisaa ku tiraay qofkii waa maxay isagoo yarba ayaad macnaha marka maskaxiyad marka maxay u dhaawacaysaa marka waa maxay adiga waa la ordaya adiga waa maxay la qoslay adiga wixii la qaaday adiga waa la ciyaaraya adiga waa saa sameynaya marka. ta kale waxay yiraahdaan waxa marka iyadana waa maxay lagula dadaalaya marka waxa weeye macnaha in lala sheekaysto marka ana si marka xayaatii yawmiya daily routine-ka caadiga ah inuu sheekayn karo la isku dayo in la dhageysto marka kala soo fadhiisiyo macnaha uu la isku dayo inuu hadlo maanta inuu wax sheego wuxuu doonaa sheego waxa uu xusuusta hadalada ana inuu la dhageeyo inuu hadlo marka in laga hadal siiyo marka ay dhahan baayadana muhiima. ta kale waxay dhahan marka muhiimka waxa weeye iyadana maxay loo sameynayaa marka oo la rabo in lagu tababaro waxa weeye macnaha in la baro baa la yiraahdaa sabirka marka qodob iyadana aad u muhiim ah. salaam waxa la yiraahdaa haddii waalidka telefoon oo kale ama mobilka oo kale salahan uu ku hadlayo waa in wax la yiraahdaa la baro ishaaro marka loo bixiyo oo waalidka dumar ku hadlayo waxay dhahaan haddii waalidku gacanta markaas uu taago midalan
معناها waa inuu waxay dhahaan markaba dareemi karin waalidka inuu meesha uu joogo hooyadii tan aabihii inuu meesha inuu joogo macnaha fartan ay ka taagan tahay wax yar isug marka uu ku imanayaa marka inuu aamuso marka sayla marka maxay waa inuu galo marka macnaha taas waxa uu tabarayaa baa macnaha sabirka lagu tabarayaa dulqaadka marka oo haddii waalidka saa uga baxo saa uga dhaqaaqo waanu qeylada aanu afka aanu furan oo maxay u yaqaano haddii waalidka telefoon ku hadlayo saa loola hadlan yar waa musamarka waa maxay laga dhaadhiciyo lagu tababaro inuu qofkan marka maxay uu acbaar kadib aamir kadib marka maxay uu soo laabanayo marka oo uu soo noqonayo marka aniga wadiga sida caadiga wadiga arkayo ilmaha maamada waa inay maantana waa maxay ay xambaarsan tahay ama maantana ay shido hadda saa yar u dhigtaba in baa afka qabsanayaaba hadda in yar saa uga dhaqaaqdaba guriga waa maxay qeylaas qabsanaysa marka si taa maxay looga baxo iyagu quliyaan hadda waxay ka hadlayaan dadka caadiga waxay ka hadlayaan adigoo telefoon ku hadlaya waa inaan xidhan halkaas ka jiifi kara marka waxba aanu qeyla aanu keenin marka saa gacanta waxay dhahan sabab gacanta waxay dhahan aad u yartahay kartid marka macnaha uu aaminsan yahay sheegayso uu ishaarayso inaad u sheegayso inaad macnaha meesha aad joogto inaad ka tegin marka aad la joogto ay u tilmaamayso marka sanadkaas saddexaadna intaas maxay ugu muhiimsan waalidka looga baahan inay u sameeyaan qodobka markasta waxa lagu celinaya waxa weeye in la isku dayo ilmaha in si mustaqil madax bannaan uu xiisana maxay ugu samaysan karaan isaga markasta waalidka aanu ka dhow yahayo ودي وحي حاليا marka waxa uu ka ilaalinayo marka cashka dambe inuu eegi doono activity-ga muhiimka looga baahan yahay markuu da'da ku jiro wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa